gudoomisada haweenka sagaalka gobol ee dowladda Puntland Marwa Khadra Warsame Jaamac ayaa tababar u soo xirtay qayb ka mid ah haweenka caasimadda dowladda Puntland ee Garowe. Ujeedka iyo muhiimadda tababarkan ayaa ahaa sidii looga wacyigelin lahaa haweenka danyarta ah ee degan kaamanka barakacayaasha cudurka COVID-19 oo ah cudur saameeyay dunida oo dhan. Waxaana xiritaanka ka hadlay Dr. tababarka siinaya haweenka wacyigelinta ka bilaabaya kaamanka barakacayaasha gudoomiyaha sagaalka gobol ee Puntland Marwa Khadra Warsame Jaamac iyo qayb ka mid ah haweenka tababarkaasi qaatay. khusay cudurrada faafa ama infectious disease loo yaqaano runtii waxa farxad weyn ah maanta aanu soo xireyno tababar noo socday muddo 4 bari ah iyadoo ay fulinayeen ururka haweenka Puntland team kamida tiimamka haweenka kuwaas oo aanu tababarayay inay wacyigeliyaan coronavirus dadka barakacayaasha ah waxa ilaahay mahadiisa inuu si guul ah maanta nagu soo ilaaday iyadoo aanu 4 bari aanu qaadanay tababaro ku saabsan sidii looga hortagi lahaa cudurkan oo maanta kamida cuduradii dunida aafeeyay runtiina baaxad weyn ku yeeshay siiba dadkan aadka ugu nugul ama dadka waxa weeye la itaalka daran runtii cudur coronavirus waxa hadda uu noqday ama waxa bilaabmay wajigiisa labaad ama second wave waxa loo yaqaano iyadoo ay taas ay jirto waxa ay ururka haweenku uu go'aansaday inuu fuliyo inuu wacyigelin ka sameeyo IDPs-ka muddadii 4 bari ahayd waxa sameynay waxa way theoretical iyo mid practical ah awareness wax loo yaqaano wacyigelintaas oo ku saabsaneed mid yaani visualisa iyo mid practical ah ayaan u sameynay waxaan sameynay markii hore intaanan aanu bilaabin inaanu yaani isweydiinay sida uu wajihi lahayn qaabadii lagu hortagi lahaa maanta tahay maalintii u dambeysay waxa ay dadka qaadanayay trainingka ay feedback isiiyeen inay si dhameystiran ay yaani uga faa'iideen trainingaas ay ugu soo dhamaatay si guul ah waxaan rajaynaynaa inay si yaani hagar la'aan ay ugu shaqeyn doonaan dadka walaalahooda ay siin doonaan uga faa'iideen doonaan waxa loo yaqaano aan u barnay tan wacyigelinta oo ugu daran aan u sameeyay waxa loo yaqaan inay dareemaan waxa loo yaqaan empathy waxa waaye markii dadka la wacyigelinayo in la dareen noqoto inaad xaaladooda rasmiga ah inaad yaani ka turjumi karto. Bismillahir Rahmanir Rahim dhamaantiin waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka. Assalaamu calaykum raxmatullaahi barakaatu. Salaanka bacdi barnaamijka xafiiska ururka haweenka Puntland qaar ahaan caasimadda Puntland xafiiska uu ku leeyahay waxaan saakay halkan aan ku soo xireynaa tababar ka socday xafiiska ururka haweenka Puntland halkan tababarkan waa coronavirus-kii qaybta aan ku leenahay haweenka Puntland qaas ahaan haweenka ku nool caasimadda barnaamijkan muddo dheer baanu ka shaqeynaynay waxaanu marka horeeto aan ugu talagalnay inuu ka furmo oo shaqada aan ka qabano Garowe caasimadda Puntland inaanu ka qabano waa bilow muxuu ahaa coronavirus-kan aan urur haween ahaan qabanayno wuxuuna ka bilaabmayaa degmada Garowe qaas ahaan caasimadda 3 bilood buu soconayaa 3 bilood bisha ugu horeysa caasimadda ayuu ka bilowmayaa ka bacdina 2 bilood oo kaleeto gobolada iyo waxa baanu ka bilaabaynaa hadii Ilaahay idinka ka dhigo tababarkan waxaan u tababarnay 5 qof baan u tababarnay oo waxaan u qaybinay dhakhtarka ku soo takhasusay cudurrada faafa tababarkaas muddo soconayay muddo adu 4 bari buu soconayay saaka ayaanu xirnay 4 bari dadkaan u tababarnay waxaan rabnaa dadka barakacayaasha walaalahaya oo aan awood u lahayn xirka iyo gacmo xirka iyo shaambada gacmaha lagu dhaqdo iyo alkulka gacmaha la isaga dhaqo dadka walaalahaya oo tabarta u hayn oo gadan karin ayaanu waxaan u raadinay intaas ba inay helaan barakacayaasha
waana ilaahay iidankii waana bilaamayaan dadka aanu tababarnay ayaan u xil saarnay inay ay barakacyaasha ka fuliyaan walaalahooda jiran ama kuwa ka caafimaaday ama kuwa hadda u jiifa inay maskaraatiga afka iyo gacmo xirki iyo gacmo dhaqa inay xafiisku siiyo si ay u gaarsiiyaan dadka walaalahooda waa soconaya waxaan rabnaa in aad iska jirtaan talooyinka qaadataan faradhaqa qaadataan afka xirataan is ogaataan qofka cudurka uu hayo ama ka shakiya jirkiisa ama ka fakara inuu isagii yahay inuu dhakhtarka si degdeg u tago inuu ka hortag siiyo waxa weeye Soomaalidu dad badan waa isla seexdaan isku guri bay ku nool yihiin haddana cudurku isla qofka uu hayo iyo dadka caafimaadka qaba inay isku daartaan maaha in ay kala fogaadaan weeye maskaraatiga xirtaan faraha dhaqaan dhakhaatiirta la socdaan waxaan kula talinaynaa in ay dadaalaan oo dadaal dhab ah sameeyay ma sha Allah khayran laha siiyo afarta bari ma sha Allah 10 badan buu na baray wuxuuna noo baray cudurradan hadda adduun weynaha xitaa laga qaylinayo oo hadda garow ruuxeeda uu ku jiro oo la leeyahay dadka wacyigelin gobolka Nugaal ee caasimadda Puntland oo qaxootiyada ah marka anaga shantayada qof oo la baray walaalaha iyo ADBCda ah tababarka uu macalinku na siiyay aad baan ugu qushuucnay aad baan wax u baranay shanta bari inaanu dadka walaalaha ah oo qaxootiyada oo gobolka Nugaal ee garow jooga inaanu wacyigelinta ka sameeyno insha Allah bismillaahir rahmaanir rahiim guud ahaantiin aad baan idin salaamaya doctorka sharafta leh casharka noo dhigay cashar muhiim noo dhigay iyo tiimkayga ka qayb qaadanayba way mahadsan yihiin waxaan maleynayaa wax loo adeego bulshada ugu wacan diyaar waxaan nahay inaan bulshada u adeegno haweenka Soomaaliyeed waligeed burburka ilaa hadda wuxuu taagan inay bulshada u adeegaan diyaar waxaan u nahay dadka walaalaha iyaga nugul oo ADBS jooga kaamka oo aan dareemayno waxa iyaga ay dareemayaan oo inay cudurkan faafinina iyo sida uga hortagi lahaayeen sida ayaguna ay badqab noloshooda u dareemi lahayd aan u dareensiino aan doonayno inaan si tabraacada u adeegno ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogto cudurkan halis weeye yaan la dhayarsan waxa gudoomiyaha haweenka sagaal gobol Puntland way mahadsan tahay haddaan nahay dhalinyarada iyo gabdhaha yaryarna diyaar waxaan nahay inaan u shaqeyno dalkayga voluntary mahadsantiin shirkaas sida la idin sheegay wuxuu ahaa 4 bari wuxuuna ka bilaabmay magaalada Garowe bilbuuna ka soconayaa ADB-yada ama se barakacyaasha 3 bilood labada bilood kale wuxuu ka soconayaa gobolada kale insha Allah bidnaa karib waxaan inta ku darayaa corona hanta ajibka turxaantiya geerida haweenku u taagan yahay siduu u tirtiri lahaa waa toos cuduro khatara turxaan weeyaan khatara haddaad isla taagto ruux salaan ha la tiigsanina talaabiya laba ka durug haddaad saystaabataan si toosa u dhaqa gamcaha bulshoy taxadara dhammaan baan ilaahay wabilaahi tawfiiq hala taxadaro si kastaba ha ahaatee tababarkan ayaa socday muddo 4 bari ah waxaa la rajaynayaa inay ka fuliyaan wacyigelin kaamamka barakacyaasha iyagoona xiritaanka ku soo bandhigay qayb ka mid ah ka hortagga oo ka mid yahay faradhaqashada سعبدادا لروم بحا بلنتينو واشقو بلنتينو واشقو بينهو إسرائيل من دمدان وبارا بلنتينو واشقو بلنتينو واشقو يا سعبدادا لروم بحا بلنتينو واشقو بلنتينو واشقو